iyadoo aynu wada ogsoonahay in maanta si rasmiya loo aqoonsaday dowladda SSC Khaatumo ayaa waxaa si weyn looga dabaaldegay guud ahaan deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn waxaana hal mar isqabsaday dabaaldega iyo farxadda dadka deegaanadaasi magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa ahayd mid si weyn looga dabaaldegay waxaana isugu soo baxay boqolaal dadweyne ah oo ruuxaya calanka SSC Khaatumo iyo sidoo kale kan dowladda federaalka Soomaaliya iyagoona bogaadin iyo hambalyo u diray madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ee ku dhiiriday inay maanta aqoonsadaan dowladda SSC Khaatumo haddaba Garaad Cabdilaahi Axmed Sulub oo kamida isimadii lafdhabarta u ahaa halganka SSC Khaatumo ayaa isaguna dhankiisa farxadda la qaybsaday dadka deegaanka SSC Khaatumo waxaana hambalyo u diray madaxda maamulka SSC Khaatumo iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ee maanta ku dhiiratay inay aqoonsato maamulkaasi gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha iyo guud ahaan xukuumaddiisa waana kan garaadka oo ka hadlaya halkan maanta waxaan ku dabaaldegaynaa oo farxad weyn oo ah dowladda federaalka go'aamadii ay gaadhay ee ku saabsan Khaatumo oo ah state oo maamul kamida maamulada jira ee Soomaaliya waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dowladda federaalka ee uu ka yahay madaxweynaha federaalka Xasan Sheekh waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa ra'iisul wasaarihiisa Xamse iyo dhammaan dowladda federaalka mas'uuliyiinteeda waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dowladda Puntland maamulka Puntland oo iyaguna muddo dheer garab taagnaa ka qayb qaatay halgankii aan la galay kuwa xaqdarrada ku socda ee weli dagaalamaya waxaan sidoo kale aan rabaa halkan inaan u hambalyeeyo oo aan farxaddan maanta aan la qaybsanno dhammaan SSC iyo dhammaan Soomaaliya oo dhan dowladda federaalka maanta doorkii ay lahayd bay muujisay waxay isgarab taagtay oo soo dhaweysay maamulka Khaatumo oo ku taagnaa in aan Soomaaliya la kala goyn taas maanta waxaa cad in Soomaaliya aan kala go'ayn waxaa cad kuwii dhowr iyo 30 sano u dagaalamay inay Soomaaliya kala gooyaan inay maanta hogga ka yihiin marka aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa aadna waa idin salaamay Garaad Cabdilaahi Axmed Sulub ayaa sidoo kale ahaa isimadii lafdhabarta u ahaa halgankii SSC Khaatumo isla markaana aan mar kaliya ka bixin sidii la isugu xoreyn lahaa maamulkii ku soo duulay deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn Cabdicasiis Aadan Jaamac Buuhoodle.